السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعم فرم كسر دوادا. أنا قد دكتور سخاوة هل كان يواهميله أونلاين كولج. سيد آلا بنوغا برتين وحين نتوجد بنا عشرة مقالق روح بدن. مركا وحنا دلنا هاي بالشاني وحنا قادنا أرض عصب وحنا بجنانا وكواليفايد ما واحد بلوين قادنا يا هذا دوني سيدنا فكالتية ذا اللي تمدوا وقت ديرا سودو هذا الله كأفر بلوثر تحكوا سودو يشيد فصحبات هاي ما أنت بحار ما هنا نجنو أنت قيب كم إذا فرماكولوجيا جارهان أنتيبيوتكس كمركان كلنا سديد قيبود بالله قيب كم إذا سوق هذا لنا قلوا يقانو عوان كاسادر كيسان ماكرولايدس هذه أدو بعض قيبها كلا دوّن بيج كوجران فرماكولوجيا ماكرولايدس كو وكوح دووينا oo kamida dawooyinka antibiotica isla markaana loogu talagalay in lagu baabiyo ama lagu dilo bakteeriyada caabuqyada ay keenaan gaar ahaan kuwa respiratory system-ka ila janqaad the macrolides marka laga hadlayo the macrolides are bacteriostatic macrolides waa antibiotic marka laga hadlayo waxa loo kala qaadaa bactericidal iyo bacteriostatic haddaba marka kuwani waa bacteriostatic waxay leeyihiin fal dilid ah iyo fal hakin ah xanuunkan caabuqiisa inuu faafido labadaas loo kala qaado waxa la yiraahdaa bacteriostatic iyo bactericidal good antibiotics marka laga hadlayo qalajiyash sidoo kale waxa ay leeyihiin wax loo yaqaan broad spectrum antibiotic iyo narrow spectrum antibiotic kuwa awoodoodu ay balaaran tahay iyo kuwa awoodoodu ay yar tahay labadaas loo kala qaada haddaba kuwan aynu ka sheekeynayna waa maxay waa broad spectrum awood biixda ay leeyihiin marka ayada very good ila soco abu broad spectrum activity ay kaga soo horjeedaan looga soo horjeedo germska loo yaqaan gram positive bakteeriyada marka la rabo in dawada antibiotic qofka la daaweeyo waxa lagu daaweeyaa dawadani ma bacteria positive bay ku wanaagsantahay mise bacteria negative bay ku wanaagsantahay haddaba kuwan waxay ku fiican tahay bacteria gram positive oo loo yaqaan oo bacteria ah very good macrolideska aanu ka sheekeynayno are well tolerated oral waa kuwa ku fiican in afka laga qaato sababtana waxa weeyaan absorptionka wuxuu ka dhacaa afka oral absorption code dawadu marka la qofka bini aadamka uu qaadanayo absorption by marta distribution metabolism sida darteed dawadani aanu hadda ka shaqeynayno waa dawo ku fiican marka ayada waa maxay oral wait available keeduna aad baa loo helaa dawadani in la helo suuqyada dunida isla markaana widely used si ballaaran baa loo isticmaalaa to treat lagu daaweeyo mildly to moderate si xanuun ka fudud isla markaana xanuunada stagekiisa stage wanaagsan qofka ay keenaan ay moderate uga dhigaan infectionada gaar ahaan caabuqyada ay sababto bakteeriyada kuwa respiratory system-ka several macrolides baa jira kuwa fara badan oo antibiotics have been linked ayaa la soo xiriir la leeyihiin to liver injury inay beerka wax yeelayaan dawadani waxay yeelaysaa beerka inay wax yeelaysaa sababtoo ah dawadani marka ma qaadan karayaan dadka beerka ka xanuunsanaya dadka gastritis ka qaba dawadan lama siin karo marka ayada waxay keeni kartaa marka qaar ka tirsan liver injury sababtoo ah dawadan waxaa ka mid ah erythromycin oo aad wada taqaanaan oo caan ah oo dawo Mareykan uu soo sameeyaa sidaa darteed erythromycintu qofku waxaa lagula taliyaa inuu qaato calooshiisa maran oo caloosha maran in qofku qaato waayo waxay qofku la kulmayaan raaxo darro iyo caloosha oo qofku xanuun iyo ficnaan la'aan u dareemo very good macrolides are treated waxay inta badan marka wax lagu daaweynayo lagu eegaa waxay ka mid tahay groupka loogu magac daray pregnancy category C dawooyinku waxaan ognahay inaan farmakolojiyoonka ku dhigano pregnancy category inay leeyihiin sidaa darteed ayadu macrolides waxay ka tirsan yihiin groupka loogu magac daray pregnancy category C the macrolides are large group wa koox ballaaran of antibiotics dawooyinka qalajiyaasha that first come available waqtiyadii ugu horeeyay ee dawooyinkan aynu helnaa ay ahayd early 1950 1950 ayaa dawadani suuqyada caalamka dunida soo gashay macrolides considered waxa loo tixgeliyaa bacteriostatic
fal dilid inay leedahay oo qalajiyaashu ay ka mid tahay antibiotic but laakiin high concentration xawaareedna maybe bacteria settle inay tahay qaab hakin in some susceptible bacteria qaarka bakteeriyada nugul macrolides marka la qaadanayo ay yihiin BOM drugs haddaba dawooyinkani siday u falgalaan mechanism of action dawo kasta waxay leedahay qaab ay u falgasho mechanism of action waxaa jirto dawadan markuu qofka bukaanka uu qaato maxay sameeyaan dheecaanka loo yaqaan 50S ribosomal oo dheecaanka uu soo daaya bakteeriyada ama microorganismka noolaha ee inside cellska laga helo gudaha unugyada bakteeriyada of bacteria and by doing ayagoo sameynaya so prevent in dheecaanka ay xanibaan isla markaana ay ka hortagaan production of bacteria in soo saar ay samayso bacteria ay unugyadeeda wax soo saaraan sida dheecaanka loo yaqaan protein oo qofku u baahnaa noolahan inuu ku noolaado needed for bacteria ay u baahan tahay to grow kuriimaha ama awoodda ay ku sameynaysaa ayaa inta badan xanibaad ku samaysaa ugu dambeyn result natiijada ka dhalata maxay noqon kartaa xanibaadaasi bacteria in eventually will die in sida ay ku dhimato ugu dambeyn germska marka ayada marta dheecaankii bay xanibaysaa marka ayada haddaba intaan mechanismkan maxaa ka mid ah dawooyinka drugs dawooyinkan maxaa ka mid noqonaya waa caan waa erythromycin clarithromycin azithromycin fidoximicin iyo sidoo kale telithromycin dhammaantan dawooyinkood waxay leeyihiin tablets bay leeyihiin waxa kale leeyihiin dawooyinkan syrups shurubooyin sababtoo dawooyinkan absorption-kooda qofku ka dhaca sidaa darteed dawooyinkan erythromycintu sidoo kalena wadamada qaar way soo saaraan ayaga oo injection oo cirbada ama parenteralka loo qaato dawooyinkan erythromycintu waxaa la og yahay in qofka bini'aadamka marka uu qaadanayo lagula taliyo in afka caloosha maran uu qaato maadaama ay leeyihiin discomfort raaxo darro stomachka ku dhacda waa lagula taliyo erythromycinta marka waa dawadii ugu horeysay ee groupkan la sameeyo ee groupkan macrolideska ka tirsan clarithromycin azithromycin inta badanna waxaa loo yaqaanaa groupkani macrolides sanadihii la sameeyay waan idin sheegay side effectska dawo kasta oo la isticmaalaa waxay leedahay waxyeelo side effectska maxaa ka mid noqonaya side effects waxaa ka mid ah headache madax xanuunka ka mid ah oo qofka bini'aadamka wuxuu dareemayaa dawadan markuu qaato ka bacday in madax xanuun uu jiro dizziness dawaqaa qofkan heartburn labdilaacan maxaa ka fikirayna dadka qaaska qaba waa inay marka ka ilaaliyaan nausea lalabo anorexia abatan xumo vomiting matag rash nabar soo baxa sidoo kale maxay leedahay hearing loss maqalka yaraanay sidoo kale waxay leedahay discomfort raaxo darro haddaba dadka dawooyinkan qaadanaya waxaa lagula taliyaa haddaysan ka maarmin cunno fudud inay qaataan maadaama ay keeni karto dhibaatooyinkan marka ayada side effectska mechanismkeedana waan idin sheego in dheecaanku ay bakteeriyada ay unugyadeeda soo saarayaan ay xanibayso sidaa darteed waxay ka mid tahay dawooyinka antibioticska waa koox ka tirsan macrolides 8 qaybood ee loo qeybiyo antibiotica waa qayb wanaagsan waana awood oo waxay leedahay fal dilid aada u mahadsantiin halka aad nagala socotaan waa Himilo online sanadkan waxaanu qaadanaynaa arday cusub sanadka cusub waxaanu qaadanaynaa arday cusub biidnillaahi albaari waxaanu ballan qaadanaynaa dhawaan insha Allah aqoonsigeeda raadinaynaa inaanu helno insha Allah in bachelor jaamacad isu bedelno aada u mahadsantihiin soo dhawaada haddii aad diyaar u tahay inaad nagu soo biirtid nambarada xagga sare ku qoran sida WhatsApp-ka nagala soo xiriir messengerada inta badan dadku jaanis looma helo way badihiin dadku WhatsApp-ka ilbax noqo WhatsApp-ka nagala soo xiriir aada u mahadsan tahay halkani waa Himilo online anigana Dr. Saqaawudiin share garay si ay u gaadho fariintani boqolaal kun oo Soomaaliyeed oo inaga faa'iideystaan aada u mahadsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh.